Ku soo dhawaada qiso saameyn leh dareen badanna igu reebay. Waxay ahayd macallimad fasalka shanaad ee dugsiga hoose wax ka dhigta. Maalin ayay soo hor istaagtay ardayda oo ku tiri, dhammaantiin waan idin jeclahay marka laga reebo Teddy. Ardaygan dharka uu ku libisan yahay waa wasakh. Heerkiisa fahamka casharada aad buu u hooseeyaa. Ardayda lama sheekaysto oo waa gooni socod. Xukunkaasi aan cadaalad ahayn ay ku riday macallimadan. Ardaygan wuxuu ku saleysan yahay halka sano uu ka mid ahaa ardayda ee casharada siinaysay. Wuxuu ahaa arday mar waliba dalbada inuu suuli ama masquul u baxo. Waxay ku daali jirtay sixidda casharadiisa iyadoo ugu roonaanaysay qalinka cas ama gaduudan oo istilaab weynna kor ugu qoraysa waad dhacday. Maalin maalmaha ka mid ah waxay go'aansatay inay dib u baarto feelasha ardayda, waxayna ka dhex heshay feelka wiilkan Teddy Anfariir ay la noqotay waxa ay ka argagaxday. Macallinkii fasalka koowaad u soo dhigay wiilkan waxa uu diiwaan geliyay in Teddy maskaxdiisa aad u sareyso kuna wanaagsan yahay waxbarashada. Macallinkii fasalka labaad u soo dhigay ayaa isna feelka ugu qoray, wiilkan waa mid ku wanaagsan waxbarashada, ha yeeshee waxaa walwal ku haya xanuunka kansarka ee haleela hooyadii. Sidaa daraaddeedna xaaladdiisa si gaar in loola socdo ayuu codsaday. Macallinkii fasalka saddexaad ayaa isna feelka wiilkan ku qoray, geerida hooyadii ayaa dhibaato maskaxeed ku keentay, aabbihiina daryeelka muusan helin, sidaas ayuuna uga niyad jabay waxbarashada. Halka macallinka afaraad uu isna feelka ugu qoray wiilkan inuusan lahayn wax saaxiibo ah, xiisaddan uu ku dhex hurdo, wax hami ahna uusan u haynin waxbarashada. Macallimadii ku jeesjeesaysa wiilkan ayaa markii sooyaalkiisa akhrisay isku xishootay, ceeb iyo argagaxna dareentay. Waxaa ugu sii darneyd maalintii ay ka walaacday markii dhammaan ardayda oo dhan ay u keeneen hadiyado qurux badan oo ugu talagaleen maalinta dhalashadeeda, halka Teddy oo ka murugaysan tahay waxa uu wado uu meel geesa uu la taagan yahay hadiyad baqshad ku xiran. Waxa ay furaysaa hadiyadda uu keenay Teddy iyadoo ka xun xaaladda wiilkan uu ku sugan yahay. Isagana wuxuu bilaabay in uu dhoola caddeeyo, aadna ugu faraxsan in macallimadiisu hadiyad u keenay. Waxa ay ka dhex heshay hadiyadda kuul maar ah oo ka samaysan oo ah nooca qoorta lagu xirto iyo dhalo catar oo haaf ah, laakiin dhoola caddeyntii wuu joojiyay kadib markii macallimadda ay bilowday inay u mahadceliso wiilkan yar. Waxay u muujisay sida uga heshay kuusha, aadna ugu faraxsan tahay. Intaasi kadib waxay furtay dhaladii catarka ahayd oo ay dhowr dhibcood ka marsatay. Teddy maalintaasi toos umuusan aadin guriga oo wuxuu ku sugayay macallimadda meel bannaanka si uu la kulmo. Wuxuuna ku yidhi markii bannaanka u soo baxday, caraftaada maanta waxay u egtahay caraftii hooyaday. Macallimadii ayaa mar qura indhaheedii waxaa soo dhaafay ilmo, oo way ooysay sababtoo ah hadiyadda uu keenay ayaa ahayd kuushii ay hooyadii ku labisan jirtay iyo dhaladii catarka ay ka geeriyootay. Maalintaasi wixii ka dambeeyay waxay u fidisay daryeel gaar ah, taasoo gaarsiisay in dabayaaqada sanadka uu noqdo ardayga ugu wanaagsan fasalka. Dhambaal qoraal ah oo u dhejiyay gidaarka guriga ay degan tahay ayuu ku yidhi, tani waa macallimadii ugu wanaagsaneed ee aan abid la kulmo. Waxayna ugu jawaabtay, adiga ayaa ah qofkaan ka bartay inaan macallimad wanaagsan noqdo. Dhowr sano kadib, si lama filaan ah ayaa lagu casuumay xaflad qalin jebin ah oo loo sameynaya ardayda kulliyadda caafimaadka. Waxaana warqadda casuumadda ku saxiixnaa wiilkaaga Teddy. Sidaa ayayna uga qayb gashay xafladda iyadoo ku labisan kuushii hadiyadda ugu keenay, aadna ugu go'ayo catarka caraftiisa oo hadiyad ahaan ugu keenay wiilkan. Hadda ma garatay qofka uu yahay Teddy? Teddy Stodden waa dhakhtarka ugu wanaagsan caalamka ee daaweeya cudurka kansarka. Haddaba imise carruur ah ayaa malaynaysaa inay iskuulladeena ay noloshooda iyo mustaqbalkooda burburiyeen iyagoo si aan wanaagsanayn loola dhaqmay? Imise ayaa shakhsiyaddooda burburinay? Macallimiinta waxbarashada ku jira ee iskuullada dhiga ee fariintan gaartay, waxaan rajeynayaa inay fiiro gaar ah u yeelan doonaan ardayda laga yaabo inay ku sugan yihiin xaaladdan oo kale, maskaxdoodana ay dhibaato la soo darastay. Fadlan sii sheer gareeya si macallimiin badan ay u gaarto. Waxaana turjumay sheekadan kooban wariye Aweys Xasan Maxamed. Waxaan idinla socodsiinaya wariyaha arrimaha bulshada Gacal Ayman. Sheekooyin, dhacdooyin iyo qisooyin xiiso badan si aad u hesho. Subscribe saar barta aan YouTube-ka ku leeyahay
ee Gacal Ayman.